yay ahayd ciddii ugu horeysay ee degganayd dhulka jinka iyo bini'aadanka intaanu abuurin Ilaahay ka hor ama nebi aadanba intaan la abuurin? yayse ahaayeen jinku iyo shayaadiintu oo ah kuwii ku xigay? Ilaahay abuurista wuxuu ku bilaabay carshigiisa. intaa wixii ka dambeeyay wuxuu ku bilaabay qalinka Ilaahay markuu abuuray qalinku Ilaahay wuxuu weydiiyay maxaan qoraa. Ilaahayna wuxuu amray inuu qoro waxa hadda dhacay iyo waxa dhici doona ilaa saacadda qiyaamaha laga gaarayo. intaa ka bacdi Ilaahay wuxuu abuuray 50,000 oo sano ka bacdi dhulka iyo cirka isagoo 6 ash oo qura ku abuuray. Ilaahayna wuxuu abuuray oo ku xigsiiyay makhluuqaad loo yaqaano jinka oo muslim iyo gaalba leh, iyagoo dhulka ka geystay dambiye aad u badan. Ibliis intii aanu caasiyin Ilaahay ka hor waxa jirta magaciisa in la oran jiray Azaziil oo ahaa qof ku dhex jira malaa'igta. waxaana laga soo gaaray oo laga wariyay Israa'iliyaadku waa wixii Towraad iyo Injiil laga soo sheegay, laakiin dhankeena daciifka ah oo ah qaar aan la rumaysanayn lana diidayn. Ibnu Kasiir kitaabkiisa Bidaaya Nihaaya wuxuu ka sheekeynayaa bilaawitaankii ay bilowmeen jinkiya insiga iyo abuuristoodii hore. wuxuuna leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aadam hortii wuxuu abuuray jinkana waxa dhulka uga soo horeeyay qolooyin loo yaqaano xin iyo bin. qolooyinkaasi dhulka ayay fasahaad ka sameeyeen, dhiig ayaanay daadiyeen. dabeedna Ilaahay ayaa ku saliday jinka ayaana la dagaalamay oo cidhib tiray oo laayay, ka bacdina dhulkii kala wareegay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ka lahaa ujeedo oo aynu dhulka ku daahiriyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri umaan abuurin jinkiya insiga inay caabudaan mooyaane. xin iyo bin oo ah qoladii jinka ka horeeyay may lahayn ama sharaa'ic laguma soo dejin hortood oo wax takliifa may lahayn, walaa soon walaa salaad walaa cibaado. qolyooyin saynisyahana ayaa sanadkii 1949 waxay arkeen lafo lagu qiyaasay 4 bilyan iyo 400 oo kun oo sano ka hor, taasoo ka hor imanaysa fikradii Darwin ee aynu bini'aadanku ka yimid asalkiisa daanyeer. daliilada la haysto inay qoom noolaayeen oo la oran jiray xin iyo bin waxa ka jira in aayadu Allah subxaanahu wa ta'aala ku leeyahay macnaheedu u dhacayo dhulka ayaan yeelayaa khaliifo ay malaa'igtuna ku leeyihiin Ilaahay oo waxaad dhulka dhigaysaa dad dhiiga daadiya. oo maxaa malaa'igtooda maskaxda ku soo dhiciyay inay dhiig daadanayaan? waxa jiray dad dhiiga daadiyay ka hor oo xin iyo bin ahaa. marka uu Allah subxaanahu wa ta'aala leeyahay khaliifaan dhulka dhigayaana waa bini'aadanka markuu abuurayay ama nebi aadan. laakiin hortii dad dhiig daadiyay ayaa jiray oo xin iyo bin loo yaqaanay oo dhulka ku noolaa. waxaanaad ogaataa in jinka uu ka horeeyay nebi aadam hortii la abuuray. jinkuna muu lahayn wax dhiiga. halkan aayadana waxa ku jirta wayasfiku dimaa. jinka waxa laga abuuray min darafil lahab ama naarta laga abuuray oo dhiig muu lahayn. Ibliis isaga waxa la oran jiray magaciisa Azaziil, waxaanu la noolaa malaa'igta. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u soo diray dhulka markii iyaga iyo malaa'igta markii uu doonayay inuu halaago qoladii loo yaqaanay xinkiya binka, maadaama ciidii dhulka ka saartay xinkiya binka dhulka la wareegtay badankooda ay jin ahaayeen. isaguna uu malaa'igta ku dhex noolaa, wuxuu ka mid ahaa xin jina iyo malaa'ig oo Allah subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay in xinkiya binka dhulka ka saaro. hadhow markii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu abuuray nabiyullaahi aadam, Ilaahay malaa'igtiisii wuxuu ku yiri u sujuuda aadam. Ibliis ayuun baa diiday. istisnaaga ku jira ilaa Ibliis qolo ayaa ku odhanaysa Ibliis malaa'igtu ka mid nahaa. istisnaaga halka laga saareen waxa weeye in gaarkii loo tilmaamayo maadaama Ilaahay cibaadadii ku diiday, laakiin malaa'igta ayuu ka mid ahaa. waxaan ognahay inuu malaa'igta ku dhex cibaadeysan jiray. waxa jirta qolo kale oo odhanaysa inuu Ibliis ka mid ahaa jinka aanu malaa'igta ka mid ahayn, oo soo qaadanaya aayadii ilaa Ibliis kaana min al-jinni. Ibliis oo ka mid ahaa jinka mooyaane. qoladii horena ku diidaya ee odhanaysay ilaa Ibliisa istisnaaga odhanayay isaga inuu dambiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u sameeyay oo ka soo horjeestay baa loo istisnooday.
halkan ayay ku diidayaan oo ilaa ibliisa kaana min aljinni ayay iyaguna soo qaadanayaan. laakiin waxaad ogaataa siduu nebi aadam u ahaa asalka basharka in ibliisna uu ahaa asalka jinka. fikradda odhanaysa inuu ibliis malaa'igta ka mid ahaa jinkuna ay yihiin xayn ka mida malaa'igta inay tahay israa'iiliyaad. ilaahay markuu abuurayay nebiyullaahi aadam wuxuu isu keenay ciidda iyo biyaha, dabeetana ilaahay wuxuu ka abuuray ciidda. markuu ciidda ka abuuray malaa'igtu may ogeyn in nebiyo iyo dad wanaagsan ay ka farcami doonaan nebi aadam. waxaana ka farcamay mid gadh leh, mid cad, mid madow iyo mid xunba. waxaa la abuuray nebi aadam maalin jimco ah, sida xadiis Abu Hurayra uu ka warinayo nebiga uu odhanayo, nebiga ayaa idhi maalin qorax soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jimcaha. waxaa la abuuray aadam maalin jimcaha, waxaana jannada la geliyey maalin jimcaha, waxaana laga soo saaray maalin jimcaha. saacadda qiyaamana ma dhici doonto maalin jimcaha mooyaane. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abuuray nebi aadam gacantiisa, waxaanuu ku afuufay ruuxda, waxaana u sujuuday malaa'igta sujuud takriima ama sharafa, laakiin aan sujuud cibaado ahayn. ilaahay aayad wuxuu ku yidhi, goortii aan simo aan ruuxda ku afuufo faqacuu lahu saajidiin, u sujuuda malaa'igta ayuu ku yidhi. waxaana uu baray dhammaan magacyada nebi aadam. kadib markii malaa'igtu u sujuudeen iyagoo ilaahay amarkiisa u hoggaansamaya, ibliisna uu diiday isagoo isbidaya miciin inuu ka khayr badan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo saaray mala'il aclaa ibliis isagoo dhulka u soo diray. ibliis intaanu ilaahay caasiin ka hor wuxuu la noolaa malaa'igta, waxaana ku tusinaysa aayaddan waa alla subxaanahu wa tacaala leeyahay, faqruj minha fa innaka rajiim wa inna calayka allacnatu ilaa yowmi ddiin. ibliis kamuu dalbin ilaahay inuu dambi dhaafo, laakiin wuxuu ka dalbay inuu sugo ilaa inta qiyaamuhu ka dhacayo, isagoo doonaya inuu lumiyo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala isaga iyo durriyaddiisa iyo ciddii raacdaba naarta ayuu gelinayaa maalinta qiyaamee oo kuna abaal marinayaa, isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa ka dhaartay kuna goodiyey inuu lumin doono dad badan oo ka mida. ilaahay wuxuu ku yidhi aayad qur'aan ah oo uu isaga kaga hadlayo inuu idhi ibliis, ilaahayow isug maalinta la soo saarayo ilaa maalinka ammaanka. ilaahayna wuu u ballanqaaday inuu sugi doono, isaguna uu ku dhaartay inuu ka lumin doono waddada ilmo nebi aadam ciddii uu awoodo. oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu u ballanqaaday inuu sugi doono. laakiin nebi aadam ilaahay jannada ayuu geliyey, midhaha jannada ayaanu iska cunaa. kabacdi kelinimadii ayuu cidhiidhi ku dareemay, waxaanuu ilaahay u keenay hurdo. isagoo hurda ayuu ilaahay ka abuuray xaawo feedhiisa. markii uu kacay ee uu weyddiiyey cidda ay tahay, waxaanay u sheegtay inay tahay gabadh uu ilaahay abuuray, isaga uu abuuray inay la u wehliyeesho. xaawa nebi aadam waxaa weyddiiyey malaa'igta oo ku yidhi, waa aya gabadhan? nebi aadam ayaana u sheegay oo magaceeda ku sheegay Xawa inay tahay.